Waan idin salaamay dadweynaha caasimadda aan si wada jir ah u wajahno dhibaatada ka jirta magaaladeena aan jecelnahay iyo xeebaheena quruxda badan. Wasakhowga caagadaha waxay dilayaan deegaankeena, waxay dhaawacayaan xayawaanada ku nool badda, waxayna dhib ku hayaan quruxda xeebaheena. Nasiib wanaag, waxaan leenahay awooddii aan kaga guuleysan lahayn wasakhowga bacaha iyo caagadaha si aan dib ugu soo celinno bilicda qurxoon ee xeebaheena hawada macaan leh. Ugu horeyn aan yareyno isticmaalka bacaha iyo caagadaha, aan u ololeyno isticmaalka waxyaabaha dib loo adeegsan karo, aan u midowno nadaafadda deegaankeena. Si wada jir ah waxaan u awoodnaa inaan wadooyinkeena iyo badaheena nadiif ka dhigno. Muwaadin, waxaad oon bixi kartaa adigoo yareynaya isticmaalka caagadaha. Aan taageerno hal-abuurada dib u warshadaynta ka shaqeeya si aan caagadaha nolol labaad u siino. Naftaada iyo kuwa kugu hareeraysan waxbar si aad uga digtoonaataan wasakhowga deegaanka. Wacyigelintu waa tillaabada koowaad ee isbeddelka. Beerista geeduhu waxay keenayaan deegaan cagaaran oo barwaaqo ah. Geeduhu waa wax dabiici ah, waxayna badda ka celiyaan caagadaha. Si wada jir ah aan tillaabo uga qaadno wasakhowga deegaanka ee caagadaha iyo bacuhu keenaan. Nolosheena maalinlaha ah aan sameyno isbeddello yaryar, waxaan isbeddel weyn ku sameyn karnaa deegaankeena. La wadaag saaxiibadaada jecel badaha si aan si wada jir ah uga guuleysano wasakhowga deegaanka ee caagadaha iyo bacdu keenaan. Ku soo biir ololaha deegaanka, qayb ka qaada sameynta deegaan mustaqbalka dhow ka maran wasakhda.